Okay, assalamu alaikum asxaabta soo dhawaada. Custom audience ka hadii aan sameyno waaye marka quickly waxaan rabaa inaan ku tuso wax yar oo important ah before aan create gareynin. Horta Facebook, this is Facebook interface-ka macnaha meeshan oo hadda waxaan joognaa business manager-kan joognaa, so mar walba way isbedeli kartaa. Marka custom audience-ka meesha laga tegi karo kow intaan ku tusin waxaan rabaa inaan ku tuso wax oo yar oo important ah. Meeshan pixel waxaa ku dhufataa data source ku dhufo, again pixel ku dhufo. Marka pixelka joogtid aad rabtid waa ina pixelka iyo business ad account-ka iyo pixelka inaad isku sheegtid oo isfahmaan waaye inay waxa yar communication sameeyaan waa isfahmaan. So marka waxaa leedahay add assets ku dhufanaysaa marka pixelka imaatid kadib waxaa leedahay ad account-kii oo macnaha aad rabtid wax ku xayisiisato kii aan isla clear gareynayno oo kanaha ku diray macnaha aad leedahay. So hadii aad aan ku dhufto kale kadib waxaa sameynaya haddana add people leedahay meeshan markaas qofka arabtay oo inuu macnaha muhiim ah laakiin tan waa qasab ina macnaha sometimes Facebook anything aan isbedeli karo marka waxbuu waska ka adkay kariya marka waxaan rabaa inaan just to make sure everything is smooth intaan macnaha custom audience-ki waxaan xayisiin aan create gareynin. So okay, so hadda marka meeshan aan joogno custom audience waa ka tegi karnaa anagoo isticmaalayno open in events manager anagoo ku dhufanayno meeshaas waa ka tegi karnaa. Marka laba meel inaan ka tagno aan rabaa aan ku tuso just in case oo interface-ka uu isbedelo oo hadhowti laga yaabo inaad weyso meesha aad ka tegi lahayd. Kow marka pixelka joogno meeshaas ku dhuftay meeshaas waa ka tegi kartaa. Labo xasuuso marka pixelka dhinaceedan kasoo galnay. Labo ad account-ka oo account marka ku dhufatid oo ad account ku dhufatid oo kadibna ku dhufatid open in ads manager. So midna waxa waaye ad account-kan kasoo galnay oo ads manager, midna waxaan kasoo galnay pixelka oo ahayd events manager. So labadaba inaan macnaha ka tegi kartid aan rabaa. One of them hadaa weysid the other one waa helay mid kamid ah helay guarantee waa taas. So marka meeshan hadda waxa waa meeshii aan kasoo galnay events manager. So meeshan ugu qorantaa koro loo jeedaa midana waxa waaye ads manager-ka. So meeshan joogno waa fahmi kartaa kulliba. So marka meeshan aad joogtid meeshan ku dhufo oo greenka create qoran tahay kadib waxaa ku dhufataa create custom audience. So meeshan create custom audience ay ku qoran tahay ayaan rabnaa inaan ku dhufano laakiin meeshan ka hooseysan waxa waaye create lookalike audience. Lookalike audience-kana waxa waaye waa macnaha dadka custom audience-ka oo dadka wax kaa iibsaday kaba soo qaad 200 qof wax kaa iibsatay last week xayisiin rabtaa inaad create gareysid laakiin waxaa rabtaa in macnaha 200 qof dad lamid ah ay wax kaa gataan haddana. So marka waxaa leedahay Facebook waxaad sameysaa lookalike audience sameysane markaas waxaa leedahay Facebook 200 qof wax iga iibsatay ma xasuustaa last week xayisiintan tus go find me 2 milyan oo kale. So 2 milyan oo qof oo kale isoo hel oo 200 wax iga iibsatay camal ah dadkaas lamid ah. So similar audience wala lookalike wala. So similar audience waa Google laakiin this one is lookalike audience Facebook marka joogtid. So yes, so marka meesha marka ku dhufano anagoo ka imaanay dhinaca waxaan ka imaanay pixelkii oo events manager aan ku dhufanay. So waa kana marka uu weydiinaa Mr. Bossless adiga miya? Yes, okay. So marka hadda waxaan joognaa marka meeshan marka waxaan rabaa one inaan meeshan ka create gareeyo mid inta kalena meesha ka create gareeyo just in case waxaa dhan intoo ka sameyn karaa laakiin waxaan rabaa just in case one of them aa weysid the other one inaa heshid macnaha. Marka insha Allah taala haddii aad tan samaysid sida kalena sida le u sameynaya meeshan ku dhufee saan le soo baxee pop up kan ku soo baxay kadib meesha ka sii sameynaya. So marka hadda waxaan rabnaa inaan sameyno haddii aan ku laabano meeshani last 30 days sorry last 180 days oo leads inaan helno inaan sameyno. So marka meesha marka joogtid website traffic ku dhufo kadib waxaa yeeshaa leads haddii aad sameynaysid Shopify ama WooCommerce ama waxa adiga macnaha e-commerce oo alaab laga gadanayo this should be purchases. meeshan purchases inay aad marka purchaseska waa markii aad macnaha fireka oo pixelka oo fire noqdo oo soo baxo oo active noqoto purchase-ku ku soo baxayso markaasna waa kaliya garan kartaa process-kuna waa same wax weyn oo dhaxeeya male. So marka meeshan ku dhufo hadda leads aan sameysanayna last 30 days maahan waa last 180 days aan sameynayna oo duration-ka ah intuu macnaha ugu dambeysay. So marka meeshan ku dhufto last 180 days. So this is first audience kan sameysanayna waaye oo early aan sameynayna dadkana waa dadkii wax naga iibsaday ama noo soo diray information-kooda. Dad wax ma ka gadoona anaga laakiin dadkii
oo leads noo noqdo waayo oo noo soo diray phone number email noo soo diray guri noo dhisna dhehen waayo haddii aa xasuusatid. So marka waxaan rabaa hadda ta kale kuwa kale inaan ka create gareeyo meeshaan oo ads managerka. So hadda marka ads managerkan joognaa meeshaan kasoo galna waa xasuusataa ad account kasoo galnay ad account korkeeda ads managerka kusoo dhufanay meeshaan imaanay. This is ads manager meesha xayisiintii wax dhan create garee lahayn oo wax dhan laga sameeyo meeshaan waaye. So marka hadda we not creating any ads laakiin meeshaan waa iska jeeda waa fresh ad account oo cusub meeshaan ku dhufo marka meeshaan ay ku qoran tahay business tools hamburger ku eg anigu burger aan wacaa meesha burger ku eg ku dhufo kadibna waxaa ku dhufataa audience. So waxaa laga yaabaa marka meesha ku dhufatay audience inay inta kugu jirtaba oo in inta ku aalin. So because Facebook interfacekeeda mar walba isbedel every 5 minutes iska baashaalaya ma fahamtay. So audience ka ku dhufanayna laakiin so audience ka ku dhufo marka hadda waxaan create gareynay kan waa samaysanay. So waxaan nooga dhigtaa colorka nooga bedel just in case macnaha aan isku qaldin. Last waxaan sameynay 100 days 180 days oo meesha nooga muuqata kana audience-keena oo leads. So hadda marka direct ina ku dirtid waxaa leedahay create audience custom audience kusii dhufo website ku dhufo markaas because website ka rabnaa. So marka hadda meeshaan aan joogno waa macnaha pixel qaldan marka source-kaas waxaa ku ahaada pixelka saxda ah ku dhufo kadib oo ku soo baxay meesha ka soo baxay. So marka hadda waxaan rabnaa inaan sameyno last 3 days aan rabnaa inaan sameyno oo dadkiina soo booqday. So website visits waa dhigi kartaa direct page view waa dhigi kartaa maadaama anaga aan page view hore usoo sameysanay oo aan kasoo sameynay meesha gudaha. So last 3 days aan rabnaa. So meesha marka waxaa ka dhigi kartaa last 3 days. So create last 3 days haddana waxaan rabnaa haddii aan ku laabano last 7 days. So website next very easy waxaa daga dambeeyo page view aan rabnaa meeshaan waa 7 durationku last 7 days next second sorry haddii macnaha boring dareentay because waxaan sameynayo waa just basically waa maxaa rabnaa inaan sameyno last 14 days last 14 days. So next I just add 14 days next. So 14 days 30 days. Okay, I'm gonna do the 30 days last one. Website next page view 30 days yes last 30 days 0 level be handy. Okay, so page view last 30 days صح waaye. So marka haddii aad tahay Shopify iyo e-commerce oo alaaba online ku gadaan obviously macnaha process waa same. You just create a custom audience kadibna website kadib next leedahay meeshas markaa joogtid waxaa leedahay sida hadda aniga u sameynay page view oo kale obviously markaas waxaa haysataa oo kale waa sii kala saaraya segmentka waa sii kala saaraya waxaa leedahay oo kale ka soo add to cart leedahay add to cart sida hadda aan u sameeyo kale oo add to cart haddana sameynaysaa last 180 days oo purchases waa sameysanaysaa. So markaas waxaa waaye one by one macnaha u market gareynaya kuwa add to cart ka sameeyey gaara u market gareynaya kuwa page view ka sameeyey gaara u market gareynaya adigoo macnaha exclusion ku sameynayo kuwa kale oo kale ilaalinayo macnaha si macnaha waa very powerful. Marka intaas waxaan kusoo dhameynaynaa cashirka oo Facebook custom audience iyo wixii ku saabsan. Marka wax yar kale waxaan rabaa inaan cover gareeyo cashirka ku xigo custom audience oo ku saabsan audience ka naftigooda.